Soomaaliya waa dal baaxad weyn leh oo Ilaahay ku manaystay kheyraad badan berri wabiyo iyo daaq muuqaalkan oo waqti hore la qaaday waxa uu idin muujinayaa Soomaaliya asalkeedu inay ahayd dad reer guuraa dhaqashada xoolaha nool oo uu geelu ugu horeeyo waa astaamaha dadka Soomaaliyeed ee caanka ku yihiin si kale haddii loo muujiyana Soomaaliya oo leh bad aad u dheer waxay dhacdaa bariga Afrika waxayna kulaashaa badweynta Hindiya gacanka cadmeed iyo badda cas dhinaca barigana waxa ay dhul wadaag la leedahay wadamada Ethiopia Kenya iyo Djibouti waxaana la og yahay in Soomaaliya ay tahay dalka isku xidha Afrika iyo bariga dhexe dhinaca ganacsiga waxa ay xiriir toos ah la leedahay wadamada kale ee qaaradaha dunida qiyaas ahaan dadka Soomaaliyeed waxa waqtiyadii ugu dambeeyay lagu sheegay in ay yihiin dad ka badan 10 milyan inkastoo nolosha dadka Soomaaliyeed ay isbedbedel iyo marxalado kala duwan soo martay qarnigii tagay haddana waxa muuqata in dhaqashada xoolaha oo waliba geel uu ugu horeeyo uu yahay laf dhabarta nolosha dadka Soomaaliyeed halkani waa Muqdisho caasimadda Soomaaliya xilli dawlad awood leh ay dalka ka jirtay muuqaalkan iyo qaabka uu askarigani u kala hagayo gaadiidka faras magaalaha maraya waxa uu muujinayaa kala dambeyntii uu dalku soo maray dadka ayaa nolol maalmeedkooda si caadi ah u watay markii muuqaalkan la qaaday Soomaaliya wixii ku horeeyay 1972 luqadda afka Soomaaligu waxay ahayd mid aan qornayn oo soo martay isbedbedel aad u kala duwan dhaqanku waxa uu ahaa mid ay Soomaalidu aad u ilaaliso waxaana lagu bartay dadka Soomaaliyeed inay aad ugu fiicnaayeen martisoorka iyagoo inta badan dadka ku soo dhaweeya cad iyo caano in haddii aan dib u eegno taariikhda Soomaaliyeed dadka Soomaalidu waxay ahaayeen kuwa ay ka mid yihiin dad aftahana ah oo gabayada aad ugu wanaagsan sugaantoodana ku cabiri jiray xaaladaha uu markaasi dalku marayo iyo waliba dhaqanka dalkooda laakiin muwaadinimada ayaa lafaha uga jirtay dhamaadkii qarnigii 19aad wadamada reer galbeedku Soomaaliya waxa ay u arkayeen dal muhiim ah qaaradda iyo gobolka oo dhan taas oo ilaa maanta ay u arkayaan waxaana xilligaasi muhiimadda ay siinayeen gumaystayaasha reer galbeedku qaaradda Afrika inay gumaystaan oo ay Soomaalina u tahay marin muhiim ah oo ay ka maamuli karaan danahooda qaaradda Afrika kaga xidhan guud ahaan dalka Soomaaliya waxa xilligaasi kala qaybsaday 3 gumayste oo waaweyn kuwaas oo kala ahaa Britain, Italy iyo France waxa sidoo kale qayb ka mid ah dhulka Soomaaliyeed iyana ay u gacan galiyeen wadanka Ethiopia oo aynu jaarka nahay xilligan Soomaalidu waxay u baahan tahay in uu hormuud u noqdo qof ay ku daba saftaan oo isaguna hiigsada sidii uu gumaysiga uga kicin lahaa dalka Soomaaliya waa dad muslimiin ah oo si weyn u aaminsan dadka diinta Islaamka wax ka yaqaana haddaba markan waxa wanaagsan inuu Soomaalida hormuud u noqdo qofka diinta wax ka yaqaana waxaana arrinkaasi u qumay oo hormuuda ka noqday macallin arday Quraan oo la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Xasan sayidku isagoo ka faa'iideysanaya isku duubnaantii jirtay waqtigan iyo nacaybka dadka Soomaaliyeed ay u qabaan sanacadaha gumaysiga iyo reer galbeedka dalkooda ku soo duulay ayaa sayidku noqday hogaamiye awood si tartiib ah u yeeshay ciidanna samaystay 1895 Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan waxa uu ku soo laabtay dalka isagoo tacliin dhinaca diinta u badan ku soo qaatay magaalada barakaysan ee Makal Mukarrama waxaana uu ka soo degay dekada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya ismaandhaafkii ugu horeeyay ee isaga iyo sanacadaalihii gumaysiga waxa uu ka bilowday dekada Berbera markii uu ka soo degay sayidku oo askarigii Ingiriiska ahaa ee xilligaasi dekada joogay uu weydiiyay sharci ama dalku gal iyo dukumiintiyo cadaynaya meesha uu u socdo iyo sida uu u yimid taas ayaa sababtay inuu si weyn sayidku uga cadhoodo oo uu askarigii ku celiyay aniga ayaa dalka iska leh adiga ayay tahay
in lagu weydiiyo waxa aad dalkayga ku joogto. sayidku markii uu murankaasi dhacay gumaystihii ingiriiska iyo ciidankiisii ma aysan xidhin ee way yaraysteen oo waxa ay u arkayeen nin hawshiisu fududahay, waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay wadaad suufi ah oo waalan maadhmulla. markii uu gudaha u galay Soomaaliya, sayidku waxa uu bilaabay abaabul iyo kicin dadweyne isagoo adeegsanaya aftahanimadiisa suugaanta uu ilaah ku manaystay. sayidku waxa uu kasbaday inta badan dadkii Soomaaliyeed isagoo gabayadiisa xilligaasi uu ku gubaabinayay dadka Soomaaliyeedna ay ka mid ahaayeen kuwa uu ku leeyahay haddii aad tihiin dad muslimiin ah maxaad u ogolaanaysaan in ay dalkiina idinku maamulaan dad gaala ah oo dibadda idinkaga soo duulay. taasi waxa ay sababtay olole ka dhana gumaysihii oo uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu ka yahay hormuud in dadka Soomaaliyeedna ay u tafaxaytaan. 1899kii boqortooyadii Ingiriisku xilligaasi waxaa gaadhay warqad uga timid Sayid Maxamed Cabdulla Xasan taas oo aad uga yaabisay mas'uuliyiintii Britain ee xilligaasi. warqadda oo u badnayd hanjabaad waxaa ka mid ahaa: hadda idinka ayaa idiin taallaa inaad kala doorataan. haddii aad doonaysaan dagaal, annaguna diyaar baan nahay. haddii aad nabad doonaysaanna waa inaad bixisaan lacag canshuur ah oo aad dalkayaga ku joogtaan. arrintaa ayaa la yaab ku noqotay dowladdii Britain ee xilligaasi, waxaana diidmada qayaxan, dagaalka joogtada ah iyo hanjabaadaha sayidka ee soo kordhaya xilligaasi ay sababeen in sayidka ay dowladda Ingiriisku u cilaamiso inuu yahay wadaad waalan maadhmulla. gumaystihii Ingiriisku inta uu diiday fariintii xilligaasi sayidka uga timid ayaa waxa uu badardar geliyay dagaalkii uu kula jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo ciidamadiisii daraawiishta ahaa oo ilaa iyo xilligan magacoodu uu ka diiwaan gashan yahay magacyada ciidamada Britain dagaalka la soo gashay intii boqortooyadaasi ay jirtay ee qaaradda madow gumaysan jirtay wadamo badan oo kamid ah. Britain waxay isku dayday inay wadamada kale ee reer Yurub iyo kuwa Afrika ee gobolka ku noolba ay ka hesho taageero gacan oo ay ka gacan geystaan dagaalka ka dhanka ah Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo daraawiishtiisii. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo reer galbeedku ay u yaqaaneen maadhmulla waxaa magaciisa lagu soo qoray bogga hore ee warbaahinta Britain ka soo bixi jiray xilligaas, waxaana Britain ay ku dhawaaqday dagaal heer caalami ah oo sayidka ka dhana. markii Britain ay ku dhawaaqday dagaal heer caalami ah, warbaahinta reer galbeedka haba ugu badnaadeen kuwa reer Yurub xilligaasi waxa ay soo daabaceen hadaladii ka dhanka ahaa gumaysihii ee uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu u diray reer galbeedka. fariimahaasna waxaa ugu weynayd fariintan soo socota: waxaan u dagaalamayaa dalkayga, waxaan difaacayaa diintayda, ma haysto waxaad iga qaadanaysaan sida dahab ama wax la mid ah. waxaad iga helaysaan oo qura waa dagaal oo keliya ayaa igala kulmaysaan. haddii aad nabad doonaysaan, iiga taga dhulkayga oo ku laabta dhulkiinnii aad ka timaadeen, waa haddii aad nabad doonaysaan. fariintan ayay ahayd hadalkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan xilligaasi sida aadka ah u gilgishay boqortooyadii Britain ee waqtigaasi jirtay. fariintan ayaa sidoo kale lagu soo daabacay warbaahinta Mareykanka. xaaladdu waa ay ku sii adkaatay gumaystihii Sayid Maxamed Cabdulla Xasanna waxa uu sii kororsaday awoodiisa ciidan. 10,000 oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo si saani ahna u yaqaana fardafuulka iyo shiishwanaaga ayuu diyaariyay, waxaana uu isu diyaariyay dagaal uu la galayo dal dhaqaale iyo ciidan ahaanba aad uga awood badan. Talyaaniga iyo Ingiriiska dagaalyahanadoodii waxa ay xabad joojin la saxiixdeen sayidka, laakiin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu bilaabay inuu sameeyo dagaallo ku dhufo oo ka dhaqaaqa nooca loo yaqaano guerrilla fighting. Anyway, the Mad Mullah was not so easily caught. He waited for a few days. He watched what was going on around him. He noticed that the Camel Corps watered their camels early every morning and their horses. And whilst they were busily engaged in doing this one morning, he and about 30 of his head men on ponies escaped out to the other side of the fort and made a dash for it. So that was the end, really the end of the little war.
1910kii dowladda Britain waxa ay soo kordhisay ciidamadeedii dagaalka kula jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxaana ciidankaasi xoogeeda ay geysay dhinaca waqooyi ee xeebaha ku teedsan oo ay ka soo degeen 1913kiina waxa bilowday mid ka mid ah dagaaladii ugu xooganaa ee dhex maray gumaystihii Ingiriiska iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan dagaalkaasi xooganaa waxa ciidamadii sayidka ee daraawiishtu ay ku gaadheen mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa ee uu sayidku gaadhay waxaana ay jabiyeen ciidamadii gumaystaha iyagoo dilay taliyihii ciidamada watay ee xilligaasi Captain Richard Coffil dilkii Richard Coffil ayuu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan isagoo fariin u diraya wadamada reer galbeedka iyo Britain waxa uu ka tiriyay gabaygan oo xitaa xilligii dagaalku uu socday ay soo daabaceen warbaahinta Yurub iyo Mareykanku sayidka oo dul taagan madaxii Richard Coffil oo meyd ahna waxa uu yidhi adaa Coffil oo jiitay oo dunida joogayne adaa jidkii lagu waday jimc la'aaneede jahannama la geeyo hadaad aakhiro jihato xilligaasi kadib waxa xoogaystay awoodii ciidamadii daraawiishta ee uu sayidku horkacayay adduunka kalena waxa uu sayidka u arkayay khatar heer caalami ah oo adduunka ku soo socota sayidkuna waxa uu kordhiyay fariisimihii ciidamadiisu ay ku lahaayeen dalka waxaana daraawiishtu ay dhisteen guryo dhaadheer oo istiraatiijiya
kuwaasi oo ay Soomaalidu sheegto in lagu dhisayba dhoobadii lagu dhisayna lagu daray caana geel. si kastaba ha ahaatee dhismayaashan ayaa ah kuwa ka cimri dheer kuwa biyaha lagu dhiso, waxaana ay weli ku yaalaan oo laga heli karaa goobihii sayidka iyo ciidamadiisu deganaayeen haba ugu weynaato magaalada Taleex ee gobolka Sool oo ay qalcadihii sayidku weli ka taagan yihiin. dhinaca kale Britain oo u aragtay inay guuldarro taariikhi ay kala kulantay dilkii Richard Coffey waxa ay bilowday dhaqaale urursi iyo isu xaydxaydasho dagaal oo ay ka qayb qaadanayaan diyaarado dagaal oo lagu weerarayo sayidka iyo daraawiishdiisa. In previous encounters with the British, he'd always had the advantage of extreme mobility. He could move about that country so easily and quickly. The aeroplane reversed that, and we had the initiative, which was quite a new thing. gumaysigii waa laga guulaystay, dalkana waa uu ka baxay, sayidkuna hadafkiisii ayuu gaadhay, waxaana uu noqday hogaamiye aad looga yaqaano qaaradda madow, waxaana uu noqday nin ay ku daydaan dadka isbedel doonka ah ee qaaradda madow ku dhaqan. daawadayaal, intani waa qayb hordhaca oo ka mid ah barnaamijyaal taxanayn oo ahaan doona oo aan kaga sheekayn doono taariikhdii ummadda Soomaaliyeed iyo halgamadii ay soo gashay, waxaana barnaamijyadaasi aad kala socon doontaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee Somali National TV. iga sarreyn